Shirkada City Furniture oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dalka ee wax soo saarkoodu yahay Somaliland isla markaasina ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta agabka guryaha, xafiisyada iyo furniture-ka kala duwan ayaa waxay si ballaaran uga qayb qaadatay bandhiga Carwada Warshadaha Dalka oo ka qabsoontay hoteelka Grand Xaddi ee magaalada Hargeysa, iyadoona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiiraduna ay indhahooda ku soo arkeen isla markaasina ay kormeer ku sameeyeen wax soo saarka warshadda City Furniture, isla markaasina waxa uu sharaxay agabka kala duwan ay ugu talagaleen inay ku soo bandhigaan Carwada wax soo saarka warshadaha dalka. Maxamuud Nuur Barre oo ah madaxa suuq-geynta ee shirkadda City Furniture, isagoo sheegay in macaamiisha kala duwan ee ku xidhan shirkadda City Furniture ay u sameeyeen qiimo dhimis dhan 20% intay carwadu socoto. ugu horeyn horta carwadani way ka duwan tahay carwooyinkii hore waxa laga yaabaa inay haayeen intaasoo businesses wax dibadda laga keenay wax wadanka oo inay isugu yimaanayeen, laakiin carwadan waxay gaar u tahay wax soo saarka dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee local media ka soo baxa wadanka gudihiisa. anaguna waxaan qayb ka ahayn shirkadaha wax soo saarka ah ee soo saara agabka furniture-iska ahna shirkadda kaliya ka soo qayb gashay carwadii lagu qabanayay wax soo saarka dalka. dhammaan macaamiisha ka soo qayb gashay u baahan inay u yimaadaan shirkadda City Furniture waxaan siinaynaa discount ah 20% kaasoo ah qiimo dhimistan ugu talagalnay muddada ay carwadu soconayso. waxaanan u siin doonaa agab kasto ay sameysay warshadda City Furniture maadaama lagu soo saarayo dalkii wax soo saarkii uu yahay in dalka lagu soo saarayo. waxaan leenahay ka faa'iideysta u kaalaya alaab ay ku qoran tahay made in Somaliland oo lagu sameeyay wadankiini. sidii ay sheegeen siyaasiyiintii ka hadlay maanta in la kordhiyo wax soo saarka dalka. ka faa'iideyso amal insha Allah.